maanta qisadeen waxay ku saabsan tahay ninkaas xaaskiisu way khiyaantay caru ilmihiisa yar way ka qaadatay shaqadiina waa laga eriyay xaaladiisuna waxay noqotay xaal ilaa uu ugu dambeyn cudur ku dhacay ugu dambeyn nolosha ka qoostay una geeriyooday laakiin geeridaas ma ahan geeri caadi ah geeri mucjiso ay ahayd ninkii isla ruuxiisii ayaa waxa dhacay inuu ilmo yar ku beeranto wuxuuna dib ayuuna ugu soo laabtaa caalamka wuxuuna bilaabay inuu ka argoosto ninkii maamulaha shaqada ka eriyay iyo gabadhii khiyaantay iyo ninkii khiyaamayay ee islaantiisana xumaantiisa la sameynayay iyo gabadhiisii yareed ee iyadana dayrisay ku tiri aabbahay ma tiid intaasoo dhanba uu ka argudan doonaa si uu uga argudan doonaa qisada animeegaas ku fahmi doontiin iyadoo dhammaystiran baan wada asxaabay iminkana inoo bilaaba animeegeena maanta oo fuul ah oo dhammaystiran kan waa wiil loo yaqaano Lame waa nin dhexaa ku jira oo sodomeeyada jira wuxuuna leeyahay gabadh iyo xaas wuxuuna iskaga nooleynaa la caadi oo dhexdhexaada inkastoo lagu leeyahay deymo fara badan ninkan markuu waqtiga firaaqada uu helo wuxuu yimaadaa qoyskiisa si uu waqti ula qaato ulana baashaalo marka qaar waxa dhacay inuu ka fasax qaato shirkada uu ka shaqeeyo wuxuuna ku dhaafay fasaxaysiya si uu la soo qaato waqti xaaskayga ilmahayga yar waxayna ku yiraahdaan waa yahay inta badan wuxuu waqtiga la qaataa xaaskiisa iyo gabadhiisa yar oo maalmaha fasaxa lagu jiro iyo maalmo uu ka soo fasax qaato shirkada oo iska daalan yahay ninkan gabadhiisa waxa lagu magacaabaa Konami maalmaha kamid ah maamulka shirkadda ay iimanay wuxuu bilaabay inuu qabsado isaga waxyaabo uu sameeyay xitaa maamuluhu oogay inuu isaga sameeyay laakiin haddana wuxuu bilaabay inuu iska qabsado ku eedeeyo wiilkeena miskiinka isagana wuxuu bilaabay inuu iska dul qaato wax ku sameynayo markuu soo xasuusto qoyskiisa si yihiin oo aysan waxba haysan wuxuuna yiraahdaa waan ka bixi doonaa noloshan markii gabadheedii weynaato laakiin miskiinka imika ay hadda burburka noloshiisa bilaamaysaa maalmaha kamid wuxuu arkaa xaaskiisa oo qada la cunaysa nin uusan soo garanay kadib wiilku yaabo inuu isku dhaxaa wuxuuna yiraahdaa maxay tahay ninkan ee la joogta xaaskaygu markaas hadan niyad wuxuu iska dhahaa kullin wax laga yaabay inuu waxyaabo qorqorsheynayaan oo nin isla shaqeeyaan weeyaan kullin ama nin ay yaqaanaan ama waa qof ay asxaabi ahaayeen marka hore iska dhaaf waxba tuugo ka khaldid wuxuuna bilaabay iskaga dhaafo oo maskaxiisa ka saaro haddana wuxuu dhahaa haweeney ku dhahay xaaskayga ilaali gabadheeda yar oo intay ciyaarayso kubadda ama ay ku jirteen garoonka ilaali oo ka warahay maxay uga soo tagtay gabadheeda yar oo ninka waqti ula qaadanaysa haddana wuxuu bilaabay wiilkii inuu yiraahdo ka iska dhaay waxba ka sii fikirin hadhow markaad ku xaafadda tagtay ay weydiin habeenkii markii la gaaro waxa dhaw wiilkii inuu yimaado xaaskiisa wuxuuna ku yiraahdaa maanta ma la joogtay gabadheeda yar naadiga kubadda markii ciyaaraysay ma la joogtay mase ku dirahaa waan la joogay gabadhiisa yar buu weydiiyay wuxuuna ku yiraahdaa gabadheedii hooyada ma kula joogtay maanta oo mi ku caawinaysay gabadhii waxay tirahaa hooyada way caawinaysay oo aabba xuma jiraan mase wuxuu ku yiraahdaa waa yahay kadib waxa wiilkii iska soo galo qolkiisa laakiin waxa wiilkii inuu ka sii fikiro yiraahdo gabadheeda maxay beenta igu sheegaysaa xaaskayguna maxay saasoo dhanbeen ugu sheegaysaa hawtii ninka la joogtay kadib waxa wiilkii siduu uga fikiray ayuu dhaabal waxa tagtaa meesha waqtiga ku qaadanay waxa laga yaabay inuu riyoonaysay oo gabadhaada gabadh kale isku ekaysiiyay kadib wuxuu yimaadaa meesha wuxuuna sawirtaa sinoorigii wixii ka dhacay meesha wixii ka dhacay muuqaal ahaan oo kale ayuu maskaxdiisa ka sawirtaa isagoo xaaskiisa la hadlaysa ninka kale waxyaabo soo dhan ayuu ka sawirtaa maskaxdiisa wuxuuna yiraahdaa may wallaahida ma ahan gabadh kale waa isla gabadhan qabo xaaskayga maalinkii xigtay ayaa wuxuu soo maraa meeshii wuxuuna arkaa xaaskiisa hadda laakiin waxa socota gabadhiisa yar ee Konami wuxuuna yiraahdaa gabadheeda iyo xaaskayga maxay ka qabanayaan xaaskiisa markii waxay ku hadlaysaa moobilkeeda ayuuna dhageysta wax ku sheekaysanayaan waxayna la hadlaysaa ninkii ay saaxiibka ahaayeen markaasuu wiilku yaaba wuxuuna yiraahdaa ninkan ay la hadlaysa maalintii hore ayuu weeyaan magaciisa kulba sheegaysaa markaasuu wiilkii soo taas la yaaban ayaa waxa ka sii yaabisa markuu maqlo gabadhiisa yar Konami oo ninka ugu yeeraysa aabbo markaasuu wiilku naxaa wuxuuna yiraahdaa aniga aabbo goormuu ninkan kale aabbo u noqday markaasuu wiilku wax bilaabay soo daba guro oo meesha u tagayaan uu eego markaasuu ugu dambeyn waxay la kulmaan ninkii gabadhuu qabay wiilkiina waxay tiraahdaa ninkan aniga ima qabo kaliya meesha guriga aan deganahay iska leeyahay ma aha ninka ay qaba gabadhana isagu ma dhalin adaa dhalay markaasuu wiilkii naxaa yiraahdaa ninkan miyaa dhalay gabadheeda kadib wiilkuu yaaba isagoo yaaban meeshii ayaa waxa dhacday maalmaha kamid fursad oo imaatay wiilkii xaaskiisii Mika hore ma nigu sheegay Mika la dhahaa xaaskiisii Mika waxay bilaabay wiilkiina soo wacdo waxayna ku tiraahdaa gabadheena waxay gashay shil ugu dambeyn kaale ka soo gaar ninkii wuxuu bilaabay inuu naxo uu yimaado hospitaalka markuu yimaado ninka dhakhtarka yimaado wuxuu yiraahdaa gabadhaada yar waxay u dhima rabtaa dhiig bax waxayna u baahan tahay dhiig markaasuu wiilkii wuxuu yiraahdaa aniga dhiigay gasho intuu horta dhiigay gasho ku hor ma ku yiraahdaa gabadheeda dhiigeedu waa maxay wuxuu yiraahdaa waa O positive adu dhiigaaga waa maxay ma eeba ma ooba ma eebiba
haddaba ku soconay wiilku wuxuu ku yiraahdaa aniga dhiiga diyaaro iga shub maasoo ku raamay dhakhtarka wuxuu ku raamay adiga intaana ka shubin adoo dhiigaagu waa gabadhaaduna waa oo markaasuu naxaa wuxuu yiraahdaa gabadha aniga dhalay maasoo dhakhtarka wuxuu ku raamay la kaftamaysa ku yiraahdaa adigu ma dhalin way haddii aad dhali lahayd waxaad noqon lahaydeen isku dhiig halkaas markuu wiilka intaa maqlo shakigiisii weynaa aan intaasoo ka shakisanaa ayaa u rumoobaya wuxuuna yiraahdaa ugu dambeyn way cadaatina gabadh yar anigu aan dhalin aan shaqana ku lahayn haddaba waxaad leedihiin gabadhu isku dhiig wax noqon karaan hooyada oo aabba maxaa qasab ka dhigaya mid ogaa saxaabe aan horta dhakhtar ma yihi culumta dhiig iyo waxaasna waxba kama aqaano laakiin anyway say ku xusan tahay baan idin soo dhigay waxna kuma dar waxna kama jarayo sideeda ayaan qisada niigu soo warinaya wiilkiina wuxuu yimaaday xaaskiisii wuxuuna ku yiraahdaa runta ii sheeg ma aniga dhalay gabadhan mise adiga dhalo qof kale yacni ka dhalay markaasay gabadhu wax ku tiraahdaa ha adigu ma dhalin qof kale ayaa dhalay gabadhana shaqar kuma lihid ee iga fogow no saa kuma tiraahdo say ku tiraahdaa ii sheegaya waxay tiraahdaa gabadhayda yar suu maalintuu dhalay wuu iskaga tegay waqtina uma qaato mana soo xasuusto yacni markaan sheekaysanayno unbu soo xasuustaa oo yacni waqti fiican ma siiyo cunto fiican ma siiyo mana masruufo ninka xaafadan yacni guriga iskale uunbaa yacni wax siiya oo dee gabadhan arda yeele ninkaasi damba kama laha markaasuu ku yidhahda yaa maxaa ku hadlaysaa hase ku tiraada waad fahantay muuse haddaba nii caddeeya asxaabe waxay yacni gabadhan ka hadlayso ninkan horta wiilkan actarka animegeena lame lagu magacaabo isaga horta gabadhan ma dhalin abidan ma dhalin isagu yacni nin kale ayaa dhalay laakiin ninkani gabadhan ayuu guursaday gabadhan ulama dhaqanto sida iyadu inuu yacni yahay odageeda yacni ulama dhaqanto inuu isaga yacni uu qabo waxay ula dhaqantaa sidii qof kale ula dhaqantaa wiilkana waa wiil iska miskiina yacni naxariis badan oo xaaskiisana saaid u jecel yahay dabeecadeeda iskala qabsado in iska booqudo yacni damba kama soo qaado waxba kama soo qaado kaliya shaqadiisaas uu ku mashquulsan waana miskiin caana madaadiye ah laakiin miskiinnimadu mararka qaar dhabarka kaa toogata ma ogtahay markaas wiilku wuxuu ku tiraahdaa saaxiib ku tiraahdaa wax walba way dhamaadaan kullu man calayha fan marka maanta anaga xagaan isku dambaysa gabadheedeerna waxaan geysanayaa ninkii yacni dhalay waan ku salaamay keep going and don't show me your face again laa ilaaha ila allah xaaladaasoo kale markaasoo kale saxkamayn kari maysid wallaahi ilaahay horta naga badbaadiya xaaladaasoo kale laakiin haddaan mowqifka taagnaan lahaa mar yacni aan dhiig daadis maga arkeen haddaan ku soconay ilaahay naga badbaadiya noocaasoo kale markaasaa wiilku wuxuu ku idhaahdaa walaale ifahan gabadha yar waan wada dhalnay aniga ayaa gabadhan dhalay nin kalena ma dhalin gabadheeda yar waan jeclahay ha iga fogeyn anaa 10 sano ay jirta aniga yacni soo dhaqaalayna soo korinayay intaasoo dhanba juhdigayga ku baxay dhiigayga ku baxay ma waxaad rabtaa maanta inaad si yaro fudud iga fogeysid fadlan gabadheeda ha iga fogeyn buu wiilku celceliyaa laakiin adiga waxaa lagu dhahaa ku tiraahdaa muuse aan kala harno markaasa gabadhiisa la hadlo wuxuu ku dhahaa gabadheedii yareed hooyadaada wax u sheeg miyay isbedeshay may sarqaansan tahay yacni maxaa la siiyey ma khamri cabtay waxba kala garanaysa miyaa hooyada maskaxda laga dhaqay miyay waalatay hooyada wax u sheeg markaasa gabadhi ku tiraahdaa ha aabba adigu aniga imaa dhalin qof kale ayaa dhalay aabbaan kala harno aabbahayna ma tihid intaasoo sanay soo korinaysa unbaan aabba kuu leeyahay laakiin aniga aabbahay asal ahaan ma tihid aabbahayga saxan u tagaya aabba waan ku salaamay mar dambe yacni inaas arkayn laa xayaata liman tunaadi wiilkii miskiinka ahaa isagoo qalbi jab ka muuqdo ayaga iskaga tegaan labadii qofba subaxii markii la gaaro wiilku markuu yimaado shaqadiisii ayaa ninkii yacni maamulaha ahaa oo nin xun ahaa ayaa wuxuu bilaabay wiilku inuu ku idhaahdo adu waxaa noqotay wiil yacni jarjaritaan badan oo aan iimanayn meesha oo si joogta aan u shaqaynayn fadlan nooga bax meesha kambanigana nooga bax hadda laga bilaabo lafti waan ku siinay iska soco waxna kuuma hayne mishaar shaqana kuuma hayne wiilkiina waxaa dhahay mar labaad uu qalbiga sii jabo noloshiina wax ku noqotaa mugdi markaasuu wuxuu ku idhahdaa sababtaadii erinaysa maxay tahay markaasuu ku idhahdaa sababtan ku erinaya ugu weyn waxay tahay waa inaad ka xadday yacni bangiga lacag ama yacni kambaniga lacag ka xadday adiga ayaana xaday cid kale ma aysan xadin fadlan noo dhaaf mar dambana ha kusoo laaban yacni kambaniga markaasaa wiilku wuxuu xasuustaa maalintii gabadhiisa isbitaalka galaysay inuu isagoo is-ilowsan uu kombyuutarka isagoo furan ka tegay laga yaaba inuu qofno tuuga soo imaaday meesha kadibna lacaggii meesha ku jiro dhan uu ka xawiltay ugu dambeyn wiilkii isagoo qalbigii jaban yahay hadha inuu iskaga soo baxo meeshii qurunka ahayd yacni lagu gumaysan jiray awalba gabadh yar ee miskiinta intaasoo dhan u shaqaynayna hooyadeed baa ka dhaadhicsan inuu ninkan uusan dhalin yacni kala dhalay ugu dambeyn hawkaa ka tagtay ninkii gabadhii yacni intaasoo sano isla noolaayeen 10 sano wax ka badan ay khiyaantay intaasoo kaliya looguma dayn wiilkii waxaa lagu dhahay saaxiib lacagtii laga xaday yacni bangigana waan kaaga fadhinaa sida ugu dhaqsaha badan leh iska soo haddii kale waan ku eedaynayna waana lagu xiri xabsi 12 sano afka lagu gelin fadlan lacagtu intay dhowdhowdahay yacni ayna waqtigu kaa dhammaan iska soo bixi 2 bilood kaliya ayaa haysataa wiilkuna wuxuu bilaabay inuu shaqo adag ka shaqeeyo oo dadaalo si yacni lacagtaas kaga gudo intaasoo kaliya wiilkii looguma dayn
waxaas leedaysaa maxaa dhacay oo kale maxaa kaloo lagu ciqaabi doonaa ciqaab kala soo socota ciqaab kala soo socota tan bay ka weyn asxaabi waxaas leedahay ninkii gabadhiisa yarba ka tagtay xaaskiisa furin ka dalbatay ninka loo khiyaamaysa aragtay hadana shaqadii ba laga yeeray saasoo ka daranta hadana tuugnimo lagu soo eeday hadana waxa lagu xukumay in lacagta uu gudo oo shaqeeyo hadana waxa loogu anjabin la gelin doono sijin ama jaal hadana waxaas ciqaaba ciqaab kale ka sii weyn ciqaab kale ka sii weyn asxaabi ciqaabta ka sii weyn waxay noqonaysaa tan noloshiisa saaid u burburin doonta taasoo ku kalifi doonta in cudur ku dhaco wiilkana uu geeriyoodo maalin maalmaha kamid ah abeesada khiyaantay oo imato wiilku waxna ku tiraahdaa fadlan waxaan ka dalbanayaa furin fur markaas wiilku wuxuu kala waayahay in marin maxkamadda markay yimaadaan oo wiilku uu furaa intaas kale looguma day waxaana loogu daraa lagu yiraahdaa gabadhan yar masruufkeeda adiga madaxa u qaadanayo adaa masruufaya markaas uu yiraahdo gabadheer ma badalin ba asal ahaan naagtan way khiyaantay iyada dhashay ha masruufato markaas uu adaa soo korin jiray oo gabadhan qabay aday ku taalaa laakiin aad sharcigu wuxuu sheegayaa in adigu masruufaysid inta nolosheeda ka dhiman wiilkiina halkaas waxa uga yimid mas'uuliyad kale oo ka sii xuntiyo hore bankiga lacagta lagu haystay markaas wiilku markay nolosha mugdi ku noqoto ayaa wuxuu yiraahdaa mugdigan murugadan waxay ka baabiin doonaa filimkeega yara jeclaa filimkeega iska daaran kadib wuxuu iska daawaa filmaanta robotska ku saabsan oo waqtiga isku lumiyo laakiin qalbigiisa wuxuu ku jira murugta maskaxdiisa kama faaruqdo si kastoo isku mashquuliyo qalbigiisina saaid buu si jaa saaid buu si xanuunsadaa wiilkan wuxuuna bilaabay inuu niyada iska dhisto oo yiraahdo gabadheeda way heli doonaa xaaladuna way caadi noqon doonaan bangiga lacagtiisana waa iska gudi doonaa anigana jeel iguma xiri doono gabadheeda waa masruufi doona xaaskaygana soo salaaban doona laakiin waa haddaan dadaalo waa inaan dadaalaa sidaan gabadheeda u soo ceshto ninka kale xunka ah gabadheedana dhalay isaga ninka kala dhalay waa in isagana gabadheeda intaasoo sano ku tabaceen jeclaana ka soo ceshto laakiin saaxiib leym waxa muuqata inaad riyoonaysid riyooyinkaasina kuma suurtagali doonaan istijiyey markaasaa wiilkii waxa dhaca hal mar inuu xanuun dareemo kadib waxa ku dhaca cudur aad u halisa wiilkiina wuxuu noqdaa sariiryaal wiilkii isagoo xanuunsanaya ayaa hortiisa waxa ka soo baxay iftiin aad u weyn kadibna iftiinkaas waxa ka soo dhex baxay makhluuqaasina wiilkii wuxuu bilaabay inuu iftiin u shido iftiinkaasina wiilku wuxuu ka dhex arkaa qofka lacagta kambaniga ka xaday inuu ahaa isla laftarka ninkan maamulaha intaasoo keliya ma aha ninkii xaaskiisa jacaylka ku beeray ugu dambayna gabadheer u dhashay khiyaano intaasoo sano ku soo waday ninka kale ma ahan waa isla maamulihii kambaniga kaasoo si xun ula dhaqmi jiray wiilkana wuxuu soo xasuustaa markuu la dhaqmi jiray sida xun wuxuuna isdhahaa anigu maxaan ku samayn jiray anana waxba ku samayn waxyaaba aanan weligay samayn oo dembiya igu qaqabsan jiray xaggaasna waxa uga cadaata in ninkan uu ka xuma noloshiisa xaaskiisana xiriir xaaraana jacayl ula waday gabadhiisa yarna isaga uu dhalay wiilkiina wuxuu bilaabay ninka xaqdii xaasidnimo qaado haddana muuqaalka wuxuu tusaa ninkii khiyaameeyey isaga ee xaaskiisaba noloshiisa burburiyey ee maamulaha ahaa oo la dabaaldegaya xaaskiisii oo ku faraxsan in wiilka dhibaatada heshay iyo si nolosha u ciisho wiilkan markaas wiilku wuxuu bilaabay hurdada ka soo kaco waxaan ogaanaynaa waxaasoo dhan wiilka kuriyoonay inay ahayd kaliya riyo oo wax reality run aan ahayn markaas waxa soo muuqda makhluuq kale makhluuqaasina wuxuu sheegay ku yiraahdaa waxaad riyada ku soo aragto dhan waxay wada ahaayeen wax run ah oo wax been ah ma ahan waa xaqiiqo saa ogow markaas wiilku markuu maqlay inuu waxaasoo dhan ay yihiin run wuxuu bilaabay inuu qayliyo yiraahdo waxaan rabaa inaan ka aargoosto xaaskayga gabadheeda iyo ninkii i khiyaamayba nolosha igu xiilay intaasoo qofba waxaan rabaa inaan nolosha ku cabo fadlan ma ii ogolaan kartaa in adduunyada mar laba ku soo laabto makhluuq wuxuu ku yiraahdaa haa mar laba ayaa soo dhalan doontaa kadibna waa soo kori doontaa iyagana waad ka aargudan doontaa ka waran sidee u aragtaa wiilkuna wuxuu bilaabay inuu ogolaado wiilkiina wuxuu yiraahdaa khaladka kaliya ka shalaynay noloshayda waa inaan noqdo qof fiican haddaad adigu tahay qof fiican saaxiibow weligaa noqon qof u sii fiican weligaa waxa la rabaa inaa isku dheelitirnaatid oo mar walba ha noqon qof aad u xun mar walbana ha noqon qof fiican isku dheelitirnow qof walbaana inkastoo weliga qof walba dhan xun iyo dhan fiicanba markaasaa makhluuq wuxuu ku yiraahdaa hay ka waran 5 adduunyaan kuu soo bandhigayaa 5 adduunyo keebaad ku noolaan mase wuxuu bilaabay inuu tiriyo ku yiraahdo ma waxaad rabtaa inaad ku noolaato adduunyada fantastiga ama sixirka ma waxaad rabtaa inaad ku noolaato adduunyada mucjisada mise ma waxaad ku noolaan dunida taariikhaha markii hore ahayd mise waxaad ku noolaan dunida ayga teknolojiyadii waxaasoo ah markaasaa makhluuq wuxuu ku yiraahdaa wiilkii yaraa waan ogolahay waxaana ku geynayaa dunida robotska ayada wuxuuna ku yiraahdaa kaliya robotko kaliya kama shaqeeyo laakiin waxa wada shaqayn kara sixirka teknolojiyadu way wada shaqayn doonaan waxaana yeeli doontaa awood aad u badan oo aad ku argudo doonteed mid kalena kugu daraya waxaad u dhalan doontaa oday dhaqameedka ka taliya meeraha ama adduunyada ku noolaa rabtid
oo waxaan noqon doontaa wiilkiisa yar markaas wiilku farxa wuxuuna ilaahdaa waxaan noqon doonaa ninka ugu xun adduunyada ku nool oo yacni wax walba burburin doona waxaan noqon doonaa mid shar socda ah oo khayrba laga filan oo mar walba dadka suxun u laaya markaas wiilku wuxuu bilaabay inuu indhaha kala qaado wuxuuna arkay inuu ku dhex jiro ilmo yar oo naqan jirkiisa wuxuuna ilaahdaa adduunyada ku noolahay waa adduunyo loo yaqaano haydara waxaana maamulo aabayna markuu arkaanoo soo sar kacay wuu farxi doonaa markaas wiil miyar wuxuu bilaabay inuu soo sar kaco wuxuuna yimaadaa hooyadii kadib hooyadu waxay bilaabeen ku tiraahdo bishaaro iminka waxaa noqotay 5 jir wiilkayga yaraana kusoo dhawow inay noqoto 5 jir waryaa safaan waxaa ka khaldan basleed ilmaha rimi kuwa soo dhashtay goormuu dib 5 jir noqda asaxa xoogan yar fahansiya animiga si aan isku tii khaldamin iminka tusaale ahaan waxaa jira meerayaal kala duwan iminka meeraha Jupiter oo kale waxaa la yiraahdaa 48 saac way maalintiisu anaga meelaha 24 saac marka meeraha ay joogaan markaysa ilmaha yar uu ku nool yahay halkii saac wuxuu la mid yahay 1 sano oo yani u dhacday saas weeyaan wiilka 5 saac jiifay meesha kadibna 5 sano ay noqotay oo yani xawaaro u socdaa laakiin iyagu waxay dareemayaan inuu yani waqtigu iska taagan yahay oo yani 6 sanada caadi halkii saac sanada ula tahay oo marka maxawo meeyaga naga dheereynaya mis anaga dheereynayna mis ana iyaga gaabinaya mis anaga gaabinayna mooyaan asxaab waxa jira waxyaabo yani aragtiyo physics-ka anu physics-ku ma fiicni laakiin hadan xoogan iga sheego meerayaasha qaar tusaale ahaan adigaagan idaawanaya hadduu jiro qof kale yani aad isku mid tihiin oo yani asleegtiin isku da'tiin isku waqti dhalatay isku saacad dhalatay isku minute dhalateen hadduu qof kala qaado oo meere kala geeyo qofkaas meeraha kale la geeyo hadduu meeri xawaare ku socdo wuxuu ku soo laabanayaa yani isla sanadka oo wiilkaasna kaan maqnaa 5 sano ama yani qofkaas uu ka maqnaa 5 sano adiguna 5 sano adduunyada joogtay wiilka wuxuu ku soo laabanay isagoo cirale adiguna yani aad tahay wiil 5 jirkii ama yani intaad ahay marka hore sababtuna yani xawaarihiisa weeyaan waxa kala soo yani dad inuu qof hore u kordhana waa waqtiga cimilada marka qofkaasi ka maqan adigu wuxuu ka maqan yahay ahaanta marka tiristay 5 sano ka maqan laakiin isagu wuxuu ka maqnaa 50 sano ويابنتها تاس ما أمينيس مركز أصحاب وحقيقة شرطة وانا باري كرتين وانا يعني علوم فيزيكس كوي إنقص فيزيكس كان ونعبها بسكول مركان شو هذا قصة عن أنيميجينا مركز هو يدو حب لاني ويل كذا يرسوك حيسو وحنا كانت أقل وحنا تستاكيك وحنا قلت لك كيك يعني عيد ميلادي جاجا ما يعني مركز عدلتي ويان يعني كوتشرني وحنا قلت تستعرب بدير kaasi oo AI waxna ku saaxdaa robotkeer waxa ka dalbanaysa wax walba oo rabtid isaga xaga kugu keenaya ee wiilkayga ii baashaan nolosha cusub ku soo dhawow laakiin wiilkan yara yani islaantu ka hadlayso ma aha wiilkeeda yara waa nin gaaban oo yani sodomeeyada jiro yani ilmaha naqdaxiisa ku dhex jira weeyaan oo yani iyadaba ka cilmi badan iyadaba uu ka weyn yahay una ka cilmi badan una ka waaya aragsan iyadoo 20 jirtay sano sodomeeyadu yani uu ku soo galay ilmaha yar noloshiisa cusub markaas wiilkii yaray hooyadiis ka sheekaysanaya ayaa waxa uu soo galay aabahood wuxuuna ku yiraahdaa aabahooda wiilkii aabiyan ka wada yani saanta aaboome wuxuu ku yiraahdaa wiilkayga yara hadiyad baan ku wadaa hadiyadana waxaan kugu talagalay dhalashadaadii oo yani maanta ayaa amaantii shanaad ee dhalatay wuxuuna ku yiraahdaa wiilkii yara hadiyadu waxay tahay inaa adiga kaaga dhigay boqortooyada yani aad muri doonto oo madaxan kaaga dhigay markaad xoogaa soo weynaatid anaguna aniga hooyadaan oo guri doono meeraha kale oo meere kale iskaga noolaan doono inta nolosheena ka dhiman mararka qaar ma ku soo booqan doonaa oo yani sa boqortooyadu wadaan arki doonaa laakiin anagu inta ugu badan waxa ku noolaan doona meera kale isaa ugu wiilkaygi hadiyadaasna waa hadiyad qaaliya oo qof walba ku ahmiyo waxaana filayaa inaad ka faa'iideysan doontid oo sidaad uga soo bixi doontid wiilkii yaraan wuxuu ku yiraahdaa inankayga yaraa bil kasta waxaan ku siin doonaa lacag kugu gaaro oo hadhow markaa soo weynaatid yani masruuf ka dhigan doontid wax ku qabsan doontid oo inta boqortooyada ka soo galaysan ka badan ayaa yani meel ku dhigi doonaa ee saa ogow wiilkii waxa bilaanu madaxa laho yani ogolaado isagu ma hadlayo yani waa hadli karay laakiin hadalku iska jabsanaya wiilkan yana iska dhigay yani hadalka jabsanaya laakiin uu hadli karaa waayo waa nin 30 jir ilmaha ku dhex jira adoo qof yani weyn oo dib u soo dhashtay weeyaan markaas aabi wuxuu bilaanu u yeeray ninkii la taliyaha ahaa wuxuuna ku yiraahdaa waxa rabaa inaad saxiixdid inaa wiilkeen markuu dhow soo weynaado aan yani ku wareejin doono boqortooyadan isaguna maamuli doono oo meeraha isagu mas'uul ahaan doono markaas odaygu wuxuu bilaanu dhanka ka fikro wuxuuna yiraahdaa hadda ayaa iskaga tagaynaa ka war xaaskayga wiilkayga yar ee 5 jirka waxaan uga tagi doonaa meerahan haddana waxaan oo ilaalin doonta gabadh loo yaqaan maid yani waa garin self-engaged waa gabadhan yani shaqaalaha ama adeegtada ah wuxuuna yiraahdaa gabadha adeegtada ah ayaana yani wiilkeeda noo ilaalin doonta oo soo korin doonta ilaa intuu ka soo weynaanayo yani caqli iyo awood ka yeelan doono anaguna waxaan iskaga guri doonaa caalam kale oo caalamkaas kale aan iskaga noolaan doonaa haddaba waxay isleeyihiin sababta ay u cararayeen labadan waalid wiilkooga uga tagayna meero kale u tagaan maxay tahay anaa gadaal liga fahansiin doona ee socda
waxa dhacay in labadii waalin iskaga guuraan caalamkii ama yacni meerahay ku noolaayeen oo meeraha kale iska tagaan sababta u guureen ugu weyn waxay ahayd waxay dareemayeen yacni markii meeraha kale ay tageen waxay dareemayeen in iskaga yimaadeen mas'uuliyad yacni in iskaga yimaadeen khatar aad u weyn oo noqon doona wiilkan dilaaxun oo bilaa naxariisa oo yacni mar walba dadka xun ugaarsada oo dadka xun si aad u laaya inkasta inuu leeyahay dadka masaakiimaha laakiin wuxuu si xun u leeyin doonaa dadka yacni dambiilayaasha oo wuxuu noqon doonaa wiil bilaa naxariisa sababtaas bay ugu yimaadeen yacni boqortooyadooda haddaba wiilkan Lame lagu magacaabo isagoo wuxuu xasuustaa noloshiisii hore oo yacni waa nin 30 jira umana baahna yacni qof xanaaneeya ama gabadh yacni kalkaalisa ama yacni gabadh adeegta oo u shaqeysa oo isaga mar walba ka daryeesha uma baahna waa nin weyn wuxuuna yiraahdaa maxaan uga baahanayba yacni qof ay daryeelay daba socdo maanta oo dhan ay daryeelay kolbo yacni meeshan tagay iga soo qabanay hadafka ugu weyn imikana uu ku haminayo wiilkani ama yacni waxa dhan uu ku taamay waxa weeyaan waa inuu noqdo boqorka sharta ama yacni ninka ugu sharta badan ee caalamka ku nool haddaba waxaas leedihiin gabadhii Mika ee ninkii maamulaha ahaa iyo gabadhii sare xagee ka baxeen oo aaway xamaamada tusay caalam kale haddaba caalamka kale aan ku soo laabano waxa dhacay ninkii yacni maamulaha ahaa in caddaatay isagoo inuu lacag taxaday oo yacni uu nin noqday nin tuuga oo bangiga yacni dowladda isagoo ka xaday kadibna waxa dhacay in la xiro oo jeel loo imtixaamo dhanka kale gabadhii kale waxay bilowday inay shiid ku dhacdo oo yacni cid uga masruufta ay weydo nolosheedina ay burburto oo daroogada isticmaasho haddaba aan u soo laabano caalamkii ku noolaa wiilkan yar ee miskiinka ahaa ee lagu magacaabay Lame wuxuu yimaadaa yacni robotkiisii yaraa wuxuuna bilaabay inuu taabto robotkiisii yaraa waxa isku bedeshaa gabadhaasina waxay ku tiraahdaa mudan waxaan rabaa inaan ku adeego ee waxa rabtood wax walbo aad rabtay iga dalbo markaasuu ku yiraahdaa anigu waxba kaama dalbanayo ee musuqmaasuq miyaa ka jira yacni boqortooyada dhexdeeda maasoo gabadhu waxay ku tiraahdaa haa waxaa jira musuqmaasuq fara badan oo yacni kuwan kuu dhow wasiiradaada ayaa musuqmaasuqa samaynaya ee waxaan rabaa fadlan inaad tirtir markaas wuxuu yiraahdaa waan tirtiri doonaa laakiin tirtirada ma yacni wax la tirtir dhulka lagu masaxayo wuxuu yiraahdaa waxaan u bedeli doonaa robots kadib iyagana wuxuu bilaabay robots uu bedelo isagoo adeegsanaya sixirkiisa iyo yacni teknolojiyadii ugu dambeyn wuxuu bilaabay hogaamiyaasha robots uu bedelo dadkii yacni yaryaraay yacni aan danyarta ahay caalamkiisa ku noolaa ama duniyadiisa ku noolaa wuxuu bilaabay inuu yiraahdo 3 jir ilaa 6 jir dadka u dhaxeeyo dhan waa in waxbarashada ku biiraan dadkiisina waxay bilaabeen soo dhaweeyaan boqortooyada ay noqoto boqortooyo yacni ballaaran dhan kale aabihii hooyadii way geeriyoodaan isagana wuxuu yiraahdaa waxaan rabaa inaan ka aarguto yacni dadkii khiyaamay markaas makhluuqii baa lahada wuxuu ku yiraahdaa intaanad adigu ka aargudan aniga ayaa kaaga aarguday oo wax walba sameeyay ee stage ku yiraahdaa markaas wiilku wuxuu bilaabay inuu farxo boqortooyadiisina waxay bilaabeen inay sii ballaarato oo imikana uu noqday wiilkii 10 jir isagoo wali yar halkaasuna noogu dhamaanaya animegeeni falna haddii animega ka yeeshay muuqaalka legta noo saar subscribe saar kanaalka Yohan ku soo biira hamigeen waa inaan tankee galno tankeena in yar baa nooga hadhay asxaabe ee fallan tankeena ugu tuura maca salaama waa shuufuku fi anime jaaye goodbye